السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رير كلابيدو ايش نيجا دا إذا بدن اللي قصور هو يمشي سمو علي عبد الناصر نبض سما سما ثاني نبض أنا يعني كانت دتك ويني والله يا مربان كوني سجال بقولي كوب سجال شكي أرور شرماده كمرة مقالة مدح قليل كهر وحي قدام بيسيادو حتى هل عريش وسنكر سنين باران بهنقين كلابير كني وحنوبا أنا جوا يقدم بين أنا عبد البقول سمر كدتك وجموينين عاد بانو فرح سنة هي مقالة وين عاد ونظام سن بس في عنو للسن هنا قلبت النمادنو laas caanoodoo la haystana kalabaydh waxaan u malaynayaa nidaamkay iyo sharafta ay lahaan lahayd waa kala dhiman yahay waa kala dhantaalan yahay waxaa laga yaabaa inaad tidhaahaan waroo geedka qudhaca qudhaanjada ha nagu kicina haddaydan laas caanood idinku xoraynaynin warkeeda ha nagu celcelinina warka haddaan lagu celcelin armaaba laas caanoodba la ilaawaa oo nimankanu qoryo iyo dagaal iyo nacayb ay ummadan ku xasuuqaan halka uma joogaan qura taariikhdeenaba inay tirtiraan bay halka u joogaan taariikhda qura uma joogaan mustaqbalkeena laftiisa inay tirtiraan iyo magaalada laascaanood u joogaan sida qura aynu isu xoreyn karnana meeshan waa maamul habar jecel inaguma soo duulin iyo habar yoonis iyo habar awal waxayna ugu soo duulay maamul baa ka celin kara marka shirka taleexee loo socdo waxa la rabaa ergooyinkii in loo diyaariyo in shirkii dhowr jeer dib u dhacay in ergooyinku ay tagaan in ciidan daafacana loo diyaariyo in waa maqlayna waa dhaweydna iyakoo tamashlaynayayba halka mareen oo ilaa saax dheer iyo muxuu ahaa dharkeengeeye iyo karin dabayluun iyo meelaha tamashlayba ku mareen war meesha miyaan rag ku noolayn ummadi miyaan ku noolayn dhulka looma ooyaan waxaan maqli jiray qolyihii reer waqooyigaas markay maxaan siyaad barri la dagaalamayeen yay yidhaaheen ciidamadooda haddii la laayo sidii Vietnam oo kale yaa dadka reer koonfurta kacayaan reer koonfurta hadday kici waayeen waxay yidhaaheen reer koonfurta dadkan ka imanaya webiyaasha laga soo qaaday waa looma ooyaan kalabaydhow idinka ugu horeeya magaalada ugu horeysa ee laascaanood xigtaa ee looma ooyanku ay joogaan ee intanoo ku dhalatay waxaan u malaynayaa ilaa cunuga hadda 6 jirka ama 7 jir iyadoo laascaanood la haystuu dhashay waxaanba u malaynayaa in badan sida gaaladu ay tidhaaho boqolkiiba 65-70 soomaalida boqolkii qof ee Soomaaliya 65 iyo 70 meelaha waxa weeye waxay ka yar yihiin 30 jir iyo wax ka yar weeye marka ummadan xukuumadii Maxamed Siyaad Barre aad moodaa wax arkayba inay majority-gooda ay kaba yar yihiin iyadan dawladda ahayn bay dhasheen iyadoo hadda waxaa inoo bilaabmay October 15-keedii 2007 waxaa inoo bilaabay laascaanood in gacanta lagu dhigo waxaynu sugaynaa inaynu markaana nidhaahno caruurteenna mustaqbalka loo samaynayaa muxuu yahay mustaqbal aan lahayn dawlad mustaqbal aan taariikhi ka dambaynin mustaqbal dadku gumaysta oo shacab Soomaaliyeed ma aha Ingiriis iyo Jarmal iyo Shiina iyo Japan inayna haysato war cidda halkan ee geelashooda markay jilaalka tahay xagga aan roob ka diin dadka halka imanaya barkadaha ka cabayay hadda kuwayna gumaysanaya waa kuwaas waxaan annagu idin leenahay
haddii dadka dhulka lehi iyaku ayan ka dhiidhiin oo kow kala baydhow idinka ugu horreeya aydan ka dhiidhiin cid kalena ha ka filina in ilaahay roob dad dhiidhiya waa inoo dhalin karaa mucjisa rabbaani waa noqon kartaa laakiin tacaadigii waxa weeye ummadda uun dhulka u dhalatay inay iyadu isxilqaanto ugu horraysaana shirka aan tagno ergooyinku tagaan ciidamadu tagaan magaalada la daafaco inta shirku socdo maamul aynu ina ku leenahayna aynu ka dhisanno maamulkaas unbuu ilaahay sabab uga dhigay inaynu isxorayno anigu waa amin ma rabo inaan warka ku dheeraado waxaan rajaynayaa marka dambe aan isu soo noqonno iyadoo ayan magaaladan Kalabaydh la yidhaaha raggeedu ayan makhaayadaha fadhiisan karin oo kaftami karin weeye hadda dhabta marka loo hadlo haddaan kiisaska waalayan ahayn waxaan rajaynayaa marka dambe aan soo noqonno ee magaalada nimaadno reer Kalabaydh inay noqdaan kuwo uu u soo noqday hankoodii iyo qabkoodii iyo xorriyaddoodii saasaan insha Allah filayaa ilaahayna roob fiican inuu idin da'an idin sheegayna sidaas iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhaweyntan aan laydiin soo sheegin inaad durba sidatan dad basaa dagaalkana diyaar ugu tihiin waxaan u malaynayaa wadada tan meeshay waxaan u malaynayaa tolo imisay laascaanool ka jirtaa 30 kilomitir hadda aniga waagi arlada ugu dambeysay baabuurba looma raaci jirin cid dheertaasaa la mari jiray docolkii baaraamid halku ka dhow yahay إن شاء الله خير بان رجينا إن شاء الله الرحمن دولك يددك يحولها بقبوشية يعني إلهي إذن كبرينا وبالله التوفيق قولي يا جوبنيمو قولي يا جوبنيمو قولي يا جوبنيمو إن شاء الله سير دونا كل مجالات إن شاء الله دونا على بسم الله الرحمن الرحيم لما وحن سلام يا كرتام قال العدي علي خليفة قال البرفسورك عبد الساق معلول أنت لسه قلت